أبوان waxaa jira gabay uu leeyahay abwaankii weynaa ee Xaaji Axmed ilka dahab oo uu uga hadlay adduunka gabaygaas baan rabnaa inaan asagana wax ka weydiino soo dhawow horta gabayga waxaa la xasuustaa nuxurkiisa tiradiisa badan ba ninku inuu gabyaa ahaa iyo inuusan ahayn gabaygaas nin adduunka toogadii bogtay oo tigimadow aasay oo tiir dhaxaadku u muday taagan yahay haatan oo 10 nin loo kiciyey iyo inama taageera oo bale intuu taa ka koray loogu tagi waayey timahoo caddaadi iyo ma arag 10 jirkaygii tashi ma laha oo reer adduun tabatus weeyaan markaad adigu tarantoodiso yaa taab la jabiyaa buuyi gabaygaasoo adduunka kaga hadlay 10 gabdhood iyo 10 wiil oo isu kaakacday oo aad korinayso markay isu kaagaaraan yaa la yidhaahdaa calfan maysid waa meesha gabaygaas anigu aan ka tiriyey anoo isaga ta raacaya sanad hore midkaas soo socda iyo saaka waxa taagan waxaanse arkay maraykanku waa 50 iyo 4 isteeg baa layi oo midkiiba isteegii Soomaaliya la egyahay tartankii waagii dhaweyd yaa 30 nin Soomaaliya ka soo tartantay maraykanna 2 nin kaliya ka soo tartantay markaasaan gabayga xaajiga anigoo tixraacaya yaan waxaan idhi sanad hore midkaas soo socda iyo saaka waxa taagan sifaalaha ilaahay ma jiro qoon sawiraya nin sareeda haysta iyo ninkan seexan gaajada miday soo qaaday iyo midkaas sugaya iimaanka sagxad baanu wada saaranahay soo kaclays oran kuwii sharata sawlaha hayaba saaka may iman sallallahu nabigeenu wa subhanahu maxamed isagaba 60 baa naftii looga soobsaday 63 ragga saraha dhaadheer inuu saxda filayo sakaraad ku mawdkaydin heli saacad dabadeed su'aal iyo war baa idinku iman waxaad samayseen saxaabada waxaa loo dhigtaa soordi lacageed sidii ari samaan loogu horay sabada ceelkii oo dumarku siiqiya ul iyo saa ku horayaan warbaldaya dadkan soo saftay iyo saaka waxa taagan su'aal 2 nin baa waxay ahayd inay sinaadaan hadba kii waqtigu siiyo baa loogu saxayaa nin kastoo la saanto iyo ninkii saarka loo tuba 4 sano intuu sii wado yaan loogu simahayn salka iiga qaad haatan baa saamigay galaya waa subax walbaba sii hayaan reerka sii wada Soomaali bay arintaas u taalaa hadda gabaygaas anoo dhexda ka galay gabaygaasaan xaajiga ku xasuustay marka gabayaal bay lahaayeen reerkan maqdarad ka hadla waa cali dhagfeen waa orshe waa cali salaad ninka la leeyahay nin reefweynaa uu ahaa maqdarad baa waxaa la dhigi jiray wardheer nin cabdi gahayr la yidhaahdo baa maqdarada dhigi jiray nin reer khalafa oo cabdigabay la yidhaahdo iyo isagaa isa soo raacay wuxuu yidhi ama albaabka gabay nooga fur ama markii la gudbo gabay cabdigabay wuxuu yidhi gudahan ka gabyahay albaabka aduu fur oo fahan ogaaleed afweyn adeer guudkeeda iimay intii uunku dago oo daxarar dheere anuunbaa afyaalka u ahaa awlahii gabay hadba waxaadan eegaynin baa ay ka soo bixi istiqlaalka maantaya isaaq loo ilka cadeeya anigana albaabka iga fura waaba la ogaane
gabagaas yay ku galeen meeshii aakhirkii ugu dambeeyey kii reer khalaf iyo isaga laftigiisii baa gabay isku qabtay oo isqoomay cabdigabay baa gabay soo tiriyey hoogaha libaaxuba hadduu hogob ka soo yeero shimbiraha intii hoos madha iyo haayir wada nool hugunkaa intii maqashay waa wada hadaaqdaa nin walbaba adow halisa yuu ku homeeyahayaa habeenkoo dalool tegey markuu huluqadii sayro halbowlaha madow iyo xubnaha goolu harakeeyey habaaskeeda kii lagu ogaan waran la hahow isagoo hakawiyada mutay oo haragka soo jeeda hanqar iyo hilaac baa indhaha holoc la moodaa hanqalaalka iyo shaaribka huguf la moodaa ninka horay hangool inuu la dhaco haybti loo noqoy anigoo unsaas la hayr baanahay oo la iga hayro gabagii halkaas ku soo gooyey calisalaad wuu ka daba qaatay wuxuu yidhi hoogaha libaaxuba aarkuba hadduu dool ka yimid daaryo xoolaha daahdaahi mahayee hadduu daydka uga boodo hadduu geela doorkiisa iyo dayrinka abbaaro hadduu labada daaniya qabsado dacayda meesheeda afka dibirtaad ogeyd iyo hadduu caro la duuduubo afka dabaqsay dhiigguu markaas dararta nuugaa dabadeed habeedlayda waa inuu durduurtaa isagoo dinahyeynhaya oo daqarka dhuuqahaya rag la dumay dagaalkiis haddii dirita loo aado dhulka hooryo feeraha hadduu sida durbaan yeelo ninkii diida diiq lama dhamma oo waa ku darayaa aniguna la darajaanahayo gabay la iidaa labadii gabay baa markaa cabdigahayd waa nin cajaa'ib ah yuu miisaamay wuxuu yidhi ninka kanu kaasi wuxuu yidhi geela huluqadiisii ninkaanu wuxuu tilmaamay hasha meeshii uga soo booday hashu waxay ahayd dayrinka abbaaro wuxuu tilmaamay labadii daan wuxuu tilmaamay siduu dhiiggii uga nuugay wuxuu dambe tilmaamay libaaxu markuu geela diloo dhiigga ka nuugo meeshaas dambe oo habeenlayda ah iyo hilibka ugu jilicsan kala baxaa gabagii waxaa helay buu yidhi ninka la yidhaahdo calisalaad waa marka uu leeyahay goroyada gabraarteedu waa galin dambeedkii waa loo gurguurtaa markaad gaadasho u tahay orod laguma gaaree gabayaashaas hadda waa iga dhidhima yihiin niman sidaasay ahaayeenoo gabyaa wada oo maqdarad ka gabyay ahaayeen hadda calidhigfiinna waddanka waa yaalaa gabagiisii anigu markii maxamed siyaad barre waddanka haystay gabay baan ku aadshay cabdullaahi yuusuf gabay baan ku aadshay ninka la yidhaahdo madaxweynaha xasan sheekh gabay baan ku aadshay ninka la yidhaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo gabay baan ku aadshay kan hadda ugu dambeeyey oo soo laabashadayba gabay baan ku aadshay balse gabaga hore oo maxamed siyaad barre waa taariikh nin baa naloo soo bedelay waxaan ku noolahay ceelka dhabad la yidhaahdo wuxuu ahaa reer waqooyi saajin buu ahaa hal matoor baa ceelka ku yaalay geela wardheer iyo geela baxdo oo cadaada ka dambeeya iyo geela ceelcad intaas waxay isugu imaan jireen dhabbad waxay ahayd ha midowdo ha israacdo ha walaalowdo maxamed siyaad barre markuu dalka yiriyo wax xagga nin walbaba meeshuu doono marahayay bay ahayd nin baa meesha haysay geela markii la soo horo wuxuu odhan jiray markaad tidhaahda geelaasaan wataa waar geelaagaadownina geelaagaadownina waxaa weeye haddaad lacag haysato geelu waa ku cabahayaa laba geel baa isku garab soo gashay geel baa lacag ku cabbay waa fulay 9 hamayn 9 hamayn markuu 9 beri markuu qaday yuu kii kale oo ooman oo weli ooman yuu yimid markuu yimid buu misana hor cabbe
kormeerto baa dowladdu 25kii SRC bay dalka ku mari jireen Cabdilla Faadil baa dalka loo soo diray kormeer buu soo maray waa noo yimid markaasaan halaagii meesha ka dhacay gabay u dhiibay indhaweyd jawaab gabay baryaha juuqanoon oran xalay baa dad ii soo jawaday jiifka ii yimid jiinlayda adigaa bartay iyo jiibta maansada jundadaan SRC-da iyo jaalla madaxweyne nimankiina jeeqaaqi jiray jeer dhow bay iman caliyow jawaabtiiya u gee shala wixii joogay jidka ninkii ka leexda wuxuu jariyo waa mawd dheh jisaarkana ilaah baa arka oo jaasa mariyaa dheh war kuman jooga jeelka iyo xeryaha kuman jawaabahaya kuman hadalka juuq dhowra iyo kuman wax jeeqaaqa kumayaal badweyntaa ku jira kuman cirka u jeeban kuman jeebadoodii iyo qoryaha hawdka kula jeefan kumayaal jirada kaa baxsha iyo jeermiga cudurka kumayaal cilmiga joolaska ah jeer ka baramoosay kumayaal biyaha jiifa hoos jiira nagu siiya kumayaal jalaalka iyo wixii jira inoo sheega kuman xoolahoodaa jirta iyo kuman dhex jeebleeya war jundo laysku xiray baan ahayn jamac walaalaha joon iyo jubbada hoose iyo bacadka jiimaad jeexyaha nugaaleed halkii iyo jiraga leascaano meesha iyo jabuuti iyo berbera badaha jiifkooda warjaha weyn dad joogaana iyo jiiro kala dheer ninbasa jagada meeshuu xukumo noqoy jawaabdaar dheh waxaan joogin waagii ardayga jawrka lagu haystay waxaan jaallayaanow arkaa jaa'ir xugun haysta hameenkaan jihaadka u baxnay oo aan wada jidboonaynay ilaa jananku jawaabtuu baxshay iyo jeeshka niman raacin ilaa jeenugoostiya nin xumu jirti kama leexan ilaa bahalku meeshuu jabsaday jiiti lama saarin jiirkii walaalkiisa cune jahada ceebeeye jinni qaba hunguri jiitay iyo jabihii waa buux warjeexyaha rag baa weli ku jira juuq aan loo oran dheh jidka toosan ruuxii baxsha oo jiitimada gooya midun buu janjeer meela iyo jiir la leeyahay jiilaal hadduu nagu dhaco oo jaha abaarowdo jirka roob hadduu nagu do-o oo jeexa wada buuxso midun baa ka jiija leh nibcada wada jadhaanta waa meeshii layaha ama xargaa u xiran ama geel raadkiis buu haye midun baa ka jiija leh nibcada wada jadhaanta rag isjaray jahaad soo baxay iyo reero kala jeertay iyo boqor jareexada dhex taal jawr wax ugu qaybsa midun baa u jeela oo colaad jecel abiidkiis alla ilaha jibsiga oogada iyo jiirka laysaga eg jiirada caloosha iyo qalbiga ruuxba jaal laga dhig marse haddii jajuubka iyo waktigu waayo kugu jiifo marun baan jaliil ee bahay juuca kaa bixin jiidadii war dheeraatay iyo calanka joogaa rag ilaahay weynaa la jiro jaamac lagu dhaari gartii sawrka lagu qaadi jiray la isku jeebee jifa iyo qabiilkii la waa jees la kala qaybsho jaanjaanigii la iska qabay jaahilka ahaa janno soo dhulkeeni ma noqon juuca naga reebta soo joolasiin nooma kicin jahada noolaysa soo jaal walaalow ma noqon hadal jawaabtiis soo balo jacaylkii u qabay haatan kama joogsan soo janan birgayr iyo shibcigu jiib ma wada qaado soo laba jarmaado oo shaqada looma wada jeesan jeedaala soo kuma iman joon ragguu waday soo laba jubbood iyo ma marin jii dhaxamar weyne soo badarka jiiqliya nibcada jiifta lama yaabin jamarjaan raggii joogay soo jago ma haystaan soo jeega xiirkii askari jeefan ma ahan jirka da-ay jaliil baa jiree jaha barwaaqowday jilaalkii waa naga bixiya jooci gaajadu gabagaasaan maxamed siyaad barre markaa tiriyey gabayaashaan dambe hata wakti gaaban oo maqribahaan joogaa ma geli karo balse taariikhdan macashooyin horeetaan dad caraabi ahaayo cilmigoodii iyo diintiiyo caanahooda ku nooloo cidla jooga ahayn macashadii ka dambaysaa sayidoo cartamaayiyo cali yuusufna haystay macashadii ka dambaysaa talyaanoo cududiisa iyo ciidankiisa wataa
carrada noogu yimaaday macashadii ka dambaysaa cadibkii u dhigaya ingiriis ka caroodayo badduu ciidan ka keenayo casar buu ku qabtay macashadii ka dambaysaa cumur leega ahaata caqli laysugu geystay oo calankeenna la saaray oo cadowgii ina haystay carradii laga dhoobsay ma markuu ka caraabay buu cadadaysi dhulkeena iyo cuntu bagaalo u dhiibay waa markuu kenyana qayb siinayo etoobiyana qayb siinayo ma cabdiyaashii wacnaa iyo duqii aadan cismaan baa ku caraaba halkaanoo cagta saara lahaa ma ninkii cajabnaa oo caalinkii oo dhan uu yaabay baa caynaanshow hay la lahaa waa nagii cifanaynay oo cirka taaba lahayn haddiise awrka carruurtiyo cooska saaran korkiisa caynka hoose la gooyo ciidda soo ku dhac maaha wax dhan baan cadibnay oo sida ruuxa cagaagay cirbataagsi ahayn wax dhan baan calankeenna hadba ciidda ka qaadnay wax dhan baan calmanaynay mid aan caana ku daadso ha u ciyaartumanaynay masaakay calwasaad iyo hadba masaakay calwasaad iyo musaas ciriiri ku jirtaa oo cuntuba meel musaas la fariisay maasha allah maasha allah waa taariikh dheer baad ka sheekaysay oo wallaahi dee saameynteeda iyo wax la yidhaahdo mahalkeegada leh aada u mahadsantay abwan su-aalo badanaa noo dhiman maadaama waqtigu uu nahaayo oo maqrib ay tahay waa su-aalaha hadda kadib waa sii wadanayna insha allah